الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال دمانتين مالك الصوت شوكتان آدي آد باو مهسنتهين إلهي نوحان كبريا إنو خير نقص أوروريو بدبادة الدنيا دا إيو تآخرنا وينسيو balaayooyinka wareegayana inuu ilaahay naga nabadgeliyo waayo isaga dhib iyo dheef labadaba Rabbi subhanahu wa ta'ala kelmadan kooban insha Allah waxay ku saabsan tahay wacyi gelin tii aynu wadnay bariyahanba la sii xidhiidha oo cudurradan laga cabanayo wabaaga ah iyo wacyi gelintii aynu shanta jumcaba soo wadnay ayay la xidhiidhaa waxa intaa sii raaca uun iyadana baraarujin kale oo aynu ku dari lahayn insha Allah marka wacyigelintu hay dambayse ee baraarujintu waxa weeye ku saabsan tahay su'aalo labadii maalmood u dambeeyay nagu soo noqnoqonayay haddaan nahay imaamiyada masaajidada oo markaa dadweynuhu xoogaa buuqa ay ka sameeyeen taasoo ahayd masaajidada miyaana laga xidhaya oo idinkiina fatwa bixiseen xukuumaddiina ama guddidiina dee waxay iclaamiseen masaajidadii la qufulayo dadkaasi waa dadkii jeclaa masaajidada iyo inay ku cibaadaystaan oo runtii aynu mahadnaqayno abateedka u leeyihiin cibaadada marka taasi waxay runtii ku habboonaatay in wax laga yidhaahdo waxay markaa dadku daliishanayaan ama ay ku sababeynayaan saddex arrimood ta u horeysa weeyaan waxay leeyihiin dhib weyn oo imika taagan oo aynu masaajidada u xidhnaa ma jiro waxa la sheegay waa wax iska kooban oo waliba guddidu ay sheegtay inaanay waxoodu khatar ahayn xanuunkoodu marka heer aynu masjidka albaabada isugu dhufanna ma joogno waxa labaadoo dadku ay daliishanayaan inagu sibaynu uga duwanahay caalamkan dadka xareeyay oo dadkeena boqolkiiba 80 suuqay ku nool yihiin oo maalintii qaraabkooda iyo qadadooda ay u doontaan oo intooda badan guryahaba kuma noqdaan sidaa daraadeed marka masaajidkii laga xidho banaanku ma istaagayaan masaajidka hortiisa iyagoo liba afkays wada saaraya oo sheekaysanaya sidaynu imikaba ku arkayno oo daayartii laga fasaxay dugsiyada laftigooda garoomadan iyo banaanadan ay ku ciyaarayaan marka xidhidii masjidka wax badan ay kama soo kordhin arinta saddexaad ay marka sababta ka dhigaya waxa weeye wali qaadkii baa soconaya bay leeyahay waa siday dadku ku doodayaan qaadkii ayaa soconaya oo dee cudurradii xambaarsan marka haddii dee guddidu ay sheegtay qaadkiina ka xishoodeen dee masaajidana ha laga xishoodo taana way ku dareen saddexdaas sababood marka culimadu dee idinkuna ha soo horkicinaya bal cagta u dhiga sababaha ay dadku sheegeen kadib iyo hadalka soo noqnoqdeen marbana lagu soo yara buuqayo waxay noqotay inaan guddida istifsaar weydiino ama aanu qodobadii la soo saarayna dib loo eego iyo culimadii guddida ay kulmeen tala soo jeedintoodii marka sida arrinkii u fasireen culimada hore iyo guddiduba waxay noqotay inay soo jeedinahayd oo dadka iyadoo dee loo naxayo oo badbaadadooda laga fikirayo in ay u taalo tala soo jeedin oo askari iyo dee masaajidkii ciidan loo dirayo la xidhaya aanu jirin laakiin dadka lagula talinayo si ay u nabad galaan culayska masaajidada in laga yareeyo oo dad badan baa ruqsad haysta oo masaajidkii ka maqnaan kara sida caruurtii dumarkii qofkii musaafirka ahaa iyo odayaashii ama dadkii xanuunkan uga nuglaa dadkaasi inay culayska masaajidka yareeyaan oo halkii cadad badan uu ku soo ururayay cadadkii yaraado marka tala soo jeedintayadu saasay ahayd baa markaa guddida xubnihii u muhiimsanaa ay noogu fasireen sidoo kale dee dadweynahana waa inagan arkayno gaadiidkii dadweynaha waa la fududeeyey oo kala barh baa laga dhigay marka fudaydkaasunba arrintu ay ku soo ururaysaa inay dadku sidaa u fahmaan ayaa iyaduna aada u muhiima marka dee haddii xaaladdu kalifto oo arrinku uu sii xumaado daniba way odhan doontaa laakiin inta ka horeeya xaalku waa caynkaa weeye markan taa ka soo gudbo
arrintaa iyo sixiddeeda iyo baraarujinteeda si deganaanshahaasi u yimaado oo isku waxuun baynu doonaynaa aan qalad loo fahmin. waxaan raacin lahaa markaa waxyaabaha laynaga doonayo. waxyaabaha laynaga doonayaa waxa weeye inaynu qaadanno tilmaamaha layna siinayo, ama guddida ha ahaato ama aqoon-yahanka iyo dhakhaatiirta ha ahaato, ciddii macluumaad haysa. tilmaantu innagay dan inoo tahay, marka inaynu ka faa'iidaysano. guddidana khayrlaasiya dee waxay nooga muuqanaya dadaal badan ay samaynayaan oo marba macluumaadkii ay nala socodsiinayaan. marka iyagana allaha ka abaal mariyeen dadaalkooda ay wadaan, wixii tilmaama in laga qaato. taasi waa midh weeye oo dee dadku waxa loo socday loo dadaalaya waa caafimaadkeennii, waa mustaqbalkeennii, waa badbaadadeennii. arrinta labaadan xusinahaa waxa weeye in lagu dadaalo waxa la yidhaahda nadaafadda. nebigu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam addahuuru shadru liimaan. dahaaradu waa iimaanka barhkeed. in qofka deegaankiisu daahir noqdo, maradiisu nadiif noqoto, jirhkiisu nadiif noqdo aad bay muhiim u tahay. saadaashu sidaa ay sheegayso biidni illaahi tacaala aynu ka arkayno jawigana roobabkii guga ayaa curanaya. marka waxaa inagu badan qumaamada waxaan la ydhaha ama qashinka, oo waa gudahan ka hadlaya. dadka dabadda aad bay u dadaalaan. gudahan ka hadlaya magaalooyinka waxaa aada ugu badan qashinka, oo markaad eegto meeshii ay ahayd inay nadiif noqoto, dooxyada iyo meelaha biyuhu maraan, imika biriishka hareerihiisa haddaad eegto dee waxaad arkaysaa qashin aada u yaalla labada dhinacba. markaa guddiduna inay iska xil saaraan, dowladaha hoosena iska xil saaraan, dadweynaha ku shubayaana ay ka daayaan oo gaadiidka loogu talagalay la saaro. markaad runtii marto aad baad ula yaabaysa. waxaad dareemi karaysaa in cudurro kan laga hadlayo ka darani ay ka dilaaci karaan marka biyuhu fadhiistaan meeshaa lagu shubay bulaacadda iyo qashinka ee duqsigu uu ka soo karayo. arrintaa aad baan u baraarujin lahaa waddanka gudihiisa. waxa labaadoo iyadana aan sixi lahaa, dadkao dhan maaha, laakiin dadka qaarkood baa waxay caadaysteen marka daadka badani uu isku soo dhaca inay qashinka ku daraan oo qashinkii ay soo raaciyaan, oo aad arkaysa qashin badanoo daadkii la socda. markay biyuhu dhammaadaanna xaafadahii kale iyo waddada dhexdeedii buu qashinkii iswada tuulayaa. taasina waa dhaqan aan wanaagsanayn oo fool xun. nebigu sala allahu calayhi wasalam shucab aliimaan markuu ka warramayay qaybaha iimaanka wuxuu ku daray imaadatu ladaa can iariiq. waa qaybaha iimaankay ka mid tahay waddada in laga qaado wixii dhib iyo wasakha. inaad adigu dhigtaana iimaan xumay sheegaysa. marka arrintaana aad baynu u baraarujinaynaa. nadaafadda mid muuqata iyo mid macnawiyaba way leedahay. nadaafaddaasi waa tii muuqatay inu ka soo hadalnay ee cudurkan iyo cudurro kaleba ka dawaahay. waxaa jira nadaafad macnawiya oo iyadana ay tahay inaynu ku dadaalo, oo wasakhda macnawiga ahay markay timaado cudurradan oo kalea yimaada. taa waxaynu uga jeednaa macsiyada iyo dembiga. caalamku macaasidii iyo gafkii ay galeena kala duduwanaa noocyada badan ahaa, ee xadgudubka lahaa, ee dulmiga lahaa, ee kibirka lahaa, ee ilaahay oo subxaana wa tacaala laga xishoon waayo lahaa, ayaa arrintan dhalay. marka taana in laga tanaasulo oo dadku ilaahay ay u toobad keenaan, dee inagoo weliba muslimiina, waa arrin waajiba taasina. ilaahay baa wuxuu uhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun. bad iyo berriba balaayooyin baa ka muuqday. waxa u sababa dadku dhibka ay geysteen iyo macsiyadooda. ilaahayna dhibkan wuxuu u dhadhansiinayaa si ay u soo noqdaan oo ay u toobad keenaan. labada nadaafadoodba ilaahay uu israaciyo waxau ihi ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa qalbigooda nadiifiya ee dembiga iyo macsiyadiiyo xumaanta ka toobad keena oo tawaabiin la ydhaah, iyo kuwa mutadahiriinta ah jirhkooda iyo deegaankooda iyo arrinkooda oo dhan nadiifiya. marka labada nadaafadoodba inaynu israacino iyaduna waa mid madluub ahoo laynaga doonayo. waxaynu jamcinaynaa cilmigeennii iyo caafimaadkeennii iyo cibaadadeennii. cibaadadii lagama tegayo, oo waa wixii ruuxdeennu ay ku kobcaysay ee raashinka uu ahaa, ee xidhiidhka ilaahay wanaajinaya subxaana wa tacaala. bishii khayrka badnaydna way inagu soo socotaa. marka cibaadada waa u dadaalaynaa. waxa kaleynu u dadaalaynaa iyadana cilmiga barashadiisii. haddii ay tahay cilmigii maadigee dugsiyada laga qaadanayey ee fasaxay naga galay, iyo kii xalqadaha iyo masaajidada laga qaadanayay labadaba. qofku waa inaanu isdhiganin. daayarta waa in loo sheega aqoontii inay sii wadaan. dadka qaarkood online bay ugu wadaan, internetkii baa looga wadaa, mucalimiintii baa gaadhsiinaya.
markaa aqoontii inaan dadku saaqidin da'yarta iyo dadka waaweynibe aqoontii la kororsado diin iyo maadiba oo halkeedii ay ka socoto weliba waxaan ku talinayaa in mucalimiintiina mushaharkoodii iyo xaqoodii la siiyo waa arrin aad iyo aad baraarujin u mudan oo dadka qaarkood baa waxay u baahdeen u fahmeen haddii dugsiyadii la fasaxay in macallinkii aan waxba la siinayn macallinkii waa diyaar aafuun baa dhacdee isagu dee heshiis baynu la gallay inuu yahay qof inoo karaysan oo inoo adeegaya oo aqoon fidinaya isagii waa diyaar marka caqadkii aynu la gallay iyo heshiiskii xaggiisii kamuu bixin aafaa timid marka innaguna inaynu ka baxno maaha marka meel wax lagu bixiyana aqoontaa u qiimo badan marka mucalimiinta hadday qur-aan dhigayeen iyo haddii ay cilmi dhigayeen iyo hadday jaamacad dhigayeen iyo hadday iskuul dhigayeenba caqadkii heshiiskii waa sidiisiiye in caqadkaa laga baxa maaha ee waan mucalimiinta sidoodii loogu diraa mucalimiintuna aqsaa xad inta u badan ee ay dadka wax gaadhsiin karaan waa inay wax gaadhsiiyaan iyo sida ugu fudud ee ugu fiican marka arrintaana waan baraarujin lahaa caafimaadkana horaan uga soo hadlay markaa saddexda cilmigii aynu wadno iyo cibaadadii aynu wadno iyo caafimaadkii aynu ku dadaalo waxa intaasii raaca cadiyadii aynu raacino arrinta kale iyaduna guddiyaasha looga baahan yahay cudurkan ka hortagiisa waxaa ka mid ah cudurka gaajada la idhaahde iyadana in lagu daro dadkeenna noloshooda runtii ma tartiibsanaa oo sida ummadaha adduunyada aynu arkayna dadka bandooda geliyey dowladii baa wax caawinaya mushaharkiibaa u socda dadka qaarkood noloshoodu meel bay ku tiirsantay markaa dad badan oo shaqooyinkii ka kala kaceen oo bilaa masaariifa baa jira oo maanta waxay biishadaan aan haynin bishii khayrka lahaydna way soo dhowdahay kaliil baa lagu jiraa dadku way iska duruufaysan yihiin dadka qaarkood oo dabadda jooga waxaa dhacday inay gudaha masaariif uga baahdaan markii shaqooyinkii ka xidhmeen marka arrintaana hadday tahay seko iyo haddii ay tahay sadaqaba dadka walaalaheenahee muslimiinta ah ee ehelkii iyo aqaaribtii asxaabtaba leh iyagana ciddii waxhaysaa waa inay sunno iyo faralba sadaqada gaadhsiiyaan oo loo gurmado oo xaafaduhu ay suruursadaanoo raashinka la ururiyo lacagta la ururiyo oo dadkii loo gurmado haddii aafadan caamka ahi ay timid oo noloshii u habaysnay dadka ay ka kala kacday waxaynu intaa kusii dari lahayn aynu kusoo gebagabayn lahayn inay ducada badinno inahan oo dhammi waa dadaalkii ducaduna waa laga maarmaan oo ducadu waa garabsiga ilaahay la garabsanaya subxaana wa tacaala wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay baa loo cararaya cibaadadiisa iyo baryadiisa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay waa ku caabudaynaa laakiin gargaar baanu kaa doonaynaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusay adducaau yanfac mima nazala wa mima lam yanzil ducadu waxay wax ka tartaa balaayada soo degtay iyo ta soo socota labadaba ilaahay ducada iyo baryada ayuu ku joojiyaa nafteenaynu ducaysanaynaa muslimiintaynu ka naxaynaynu u ducaynaynaa kuweenii dhintay ama cudurkan ha ku dhintaan ama mid kaleba ha ku dhintaan ayaynu ducaynaynaa waxaynu ducaynaynaa kuweenna buka iyagana dhibaatadu ay haysato ama dhakhaatiirta ku cadilana ku dhiban iyo qof kastoo muslima oo dhibanba labada muslimiinta kala maqani markay isu duceeyaanna malag baa wuxuu leeyahay siduu nabigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam aamiin walaka bimithli allaha ka aqbal adiguna intaa in la eg baad leedahay marka arrimaha dhowrka ah ayaan baraarujin lahaa iyo dareenkaasoo aynu saxno insha allahu tacaala iyo dadaalkeennuna inuu noqdo wada jir dadaalkeen iyo ducadeennuba inuu wada jir noqdo oo isku dhan baa loo socdaa aan la iska hor imanina la isla fahmo wax lana wada tashado waxna la wada hirgeliyo taasaa inoo ballana aad iyo aadna waa u mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa qowlkeenna iyo ficilkeennaba mid saxoo sawaaba inuu ka dhigo wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu